كل طبعا ومقعي أنا والدافي محمد إسماعيل حسين عناية معلنك حلقة قبلك بري حلقة قبلك بري هرنا وها معلنك بري FC runtii kolay bariyahan dambeeto waxa aad miiska u saarnaa arrimaha maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir oo tartan ka furmay magaalada Muqdisho runtii si habsami ayuu u socdaa cid walba oo isku xilqaantay in dhalinyarada Soomaaliyeed soo keentana waxa la yimaadeen ka gaadho kolay dadku markii ay sidaa tahay waxa weeye degel waa la kala jiray waana la wada jiray waxa weeye anoo kale reer Puntland baanu nahay maamul goboleedka Puntland uu ka qayb galay tartankaas runtii maamul goboleed aad u awood weyn oo ku suntan ciyaaraha ayuu ahaa laakiin sanadka xoogaa waxa moodaa inay jirtay xoogaa dib u dhac inuu jiray inaan loo diyaar garoobin inuu tartan jiro markii wasaaradda ciyaaraha Soomaaliya ay shaacisay waqtiga la qabanayo ayaa moodaa inaan ku hanbabarnay taasna waxaan u leeyahay wax tartamay kama jirin guud ahaan meesha la yiraahdo Puntland dhalinyaradu mustawaha ay joogaan iyo heerka ay joogaan iyo heer ciyaareedkeeda ma la ogeyn only waxa ogaa macallimiinta jooga kooxaha sagaalka kooxood oo Puntland macallimiinta joogtay dabcan wuxuun bay ka ogaayeen ciyaartooyada mustawaha iyo heerarka ay joogaaneen wasaaradda iyadoo markii hore ka gaabisay iyo xiriirka kubadda cagta Puntland iyagoo markii hore ka gaabiyay in ay tartamo qabtaaneen oo ogaadaan in qof walba heerka uu joogo iyo meesha uu kubadda ka ciyaari karo iyo awoodda uu leeyahay iyagoo aan markii hore ka gaabiyay inay ogaadaaneen misana markii labaad waxay ka gaabiyeen inay macallimiinta xogogaalka ahayd u yimaadaaneen inay ka wareystaaneen mustawaha ciyaartooyga meesha uu joogo xirfadiisa cid soo korortay xaaladdu sida ay tahay taasna mar labaad bay ka gaabiyeen waxa qaateen go'aan aniga run ahaantii ka macallin ahaan aad ila khaldanaa magac bay ku xuleen ciyaartooygii oo hebel oo ciyaari jiray bay target ka saareen waxa kale oo arrin la yaab leh ahayd in ciyaartooyga Puntland metelayay lagu saleeyay in lagu xukumo gobolada Somaliland Puntland waxa uu u shaqeynayay wasiirkan xilligan iyo guddigii loo xil saaray inay xiriir kubadda cagta Puntland maamulaan waxay daawanayaan koobka gobolada Somaliland waxayna u geedeen yaa fiican oo Somaliland dhaxda fiican yaa weeye weerarka fiican yaa weeye garabka wanaagsan yaa weeye taas beddelkeeda meeshii la rabay waqtiga anaga tartamay noo socdaan ama heerka koowaad ama heer gobol xataa heer degmooyin iskuulaad wax kasta oo socon karay la rabay inay dhaqaajiyaan laakiin barkimada u dheereyd waxayna daawanayeen tartanka Somaliland sida muuqatan ciyaartooyga ugu badan imika Somaliland tartankeeda ayaa looga yeeray marka taasna waxaan leeyahay waa inaga iyo dib u socodkeena taas uga gudbaya arinta xulitaanka qaabka loo soo xulay ciyaartooyga runtii waxa weeye ciyaartooy badan oo hebel baa jooga Puntland xaqiiqda markaan ka hadlo markii aan de dul istaago way aragnimada aan u leeyahay iyo waqtiga dheer aan ku soo dhex jiray ciyaaraha Puntland ciyaartooy badan oo hebel baa joogay waxaana tusaale idin ku filan maamul goboleedka Puntland hal gool buu dhaliyay tartankan matchkiisa saddexaad buu galabta dheelaya taas waxa dareemi kartaa inay weak tahay weerarka oo xulka Puntland wato maamulka aynu galabta la ciyaareen galmudug waxa dhaliyaan 4 gool saddex ka midana wiilal reer bariya baa si markaana Puntland booran boosaaso ciyaartooy ay ka qaateen ayaa saddex ka mid ah siiyay ciyaartii hore waad ogeyd 2 Banaadir la galeen rikoorana waa lagu galay Fuaad gool lagu dhaliyay ciyaartii dambe 2-1 bay waxay la galeen Hirshabeelle Sakhraawi ayaa dhaliyay goolkii barbaraha saddexda gool marka waxaan oran karaa horta ciyaartooy reer Puntland ayaa siisay taas marka waxay na tusinaysaa hoos u jeednimadeena iyo cid in u igmanay inay kubadda iyo sportska inoo hagaan inaanay ogeyn cid ay hag lahaayeen meesha ay joogaan iyo cid ay yihiin waxa weeye xulitaanka qaabka loo soo maray runtii qaab cid walba oo sportiga Puntland wax ka garanaysa fajicisa ku abu ahaa sida xildhibaanadii baa loo soo xulay ama goboleysi baa lagu soo xulay waxa la leeyahay Gardafuul yaa laga wadaa hebel laga soo kaxayo Sanaag yaa laga wadaa hebel laga soo kaxayo ilaa waana beerka beelnay Sanaag Nugaal bari anaga waxaan deeqda
22 ciyaartoy in hal gobol laga xulo yihiin 22 ciyaartoy oo ku filan maamul goboleedkii waxaan idin tusi karaa oo xaqiiqatan aan farta idin saari karaa waxaanu dhalay ciyaartii koowaad waxaanu u baahneen guul waxyaabaha ka dhacay baan idin sheegayaa khaladaadka waaweyn oo ka dhacay baan idin sheegayaa waxaanu u baahneen guul si aad guul ugu hesho guul darro uga badbaado si aad bareejo u hesho guul darro uga badbaado ana guul raadisaa footballkeena faraya ciyaartooyna soo galay shaxdii hore oo lagu soo galay walow ay difaac ahayd oo aynu qaab difaac u soo galay haddana waxa ciyaarta waqtigii dambe oo loo baahnaa inaynu akhrino oo maamulka iyo macallimiinta oo macallimiin aan ixtiraamayo asxaabtayda sida macallin Jabra iyo macallin Ibrahim oo aad u ixtiraamayo waxay idin ciyaarta akhriyaanin daldaloolkana ogaadaaneen Jubbaland way soo duushay macallinku afar bedel buu sameeyay saddex kamid oo weerar bay ahaayeen oo uu keenay lama degin meeshu soo faaruqiyay waxaan waa iska jas ama waa shax waxa la rabay meeshii uu faaruqiyay oo ahayd khadka dhexe inuu isaguna duulaanka saaro oo dego laakiin waxa cajiib noqotay in inta la saaray stopper ama burburiye yarkii 17 watay inta la saaray la keenay lambar 9 baa la keenay oo khadka dhexe ka ciyaaraya maxamed jaamac injineerka isku soo wada duub qaabkeena xulitaanka iyo qaabkeena diyaar garowga oo in diyaar garowga koobka bilooyin ka hor labaduba wuxuu ahaa wax aan lagu talagelin wax aan diyaar loo ahayn wax aan laga fiirsan wax aan waxba la iska weydiin wixii meeshaas ka dhacayna garoonkay ka muuqdeen oo waxa weeye garoonka dhexdiisa ayaynu tusaale cad ku bixinayn inaan dad diyaar ahayn marka labada arrimood taasaan uga gudbay imika waxaan u gudbaynaa labadii ciyaarood oo maamul goboleedku ciyaaray labadii game oo aynu ciyaarnay xaqiiqatan waxaanu la ciyaarnay maamul goboleedka Jubbaland iyo maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya xaqiiqatan laba waxa muuqatay diyaar garow markaan xaqiiqda ka fiirino tadawur baa muuqday isbedel baa muuqday ay soo sameeyeen maamul goboleedyadu iyo gobolka Banaadir ba sababtoo ah waxaad arkaysaa Galmudug oo ku harijiday wajiga hore inay maanta zaman final ciyaarayso waxaad arkaysaa nimanka la yiraahdo Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed intuba tadawur bay sameeyeen iyo isbedel aanu aanaynayo shaqo ay qabteen cidii u xil saarneyd footballka ama kubadda cagta maamul goboleedyadaas cidii u xil saarneyd ayaa wax qabatay shaqo ku haboon inay ahayd in la qabto inaga meesha ay dadkaas tadawurka sameeyeen dib u dhac baan sameeynay tusaale cad baan ku siinayaa labadii xilli ciyaareed ee ugu dambeeyay ee maamul goboleedka Puntland ka qayb galay wax guul ma gaarin marka laga reebo ciyaarta ay macaanta dheelayaan ciyaartii lamid ahayd ee sanadkii hore dheelaan ee Banaadir la dheelaan hal iyo eber ka badiyaan marka laga reebo waa laba groupkiya oo sanadkii hore 16kii laba ay groupka dheelaan iyo xabadii finaalka wax guul ma gaarin laba aynu hadda dheelana wax guul ma gaarin goolasha aynu dhalinayna waa hal gool 5 gool hal gool baa dhalinay marka waxaad dareemaysaa halka sanadkii aynu qaadaynay waxa wax ka badan sameynay maamul goboleedku sida uu ciyaarayay kubadda quruxda badnayd oo ilqabad kala ahayd ee dhulka lagu shaqeynayay sida ay ciyaartooygu isku haysteen sida maaragtay mar walba jawaab degdeg looga bixinayay sida ay kubaddan weerarka ugu saleysnayd markii aynu ka duulo aynu halka ka dhaqaaqno waxaan oran karnaa dib baan u soconay labadii sano ee la soo dhaafay maamul goboleedka Puntland waa maamul goboleed dehan dhinaca ciyaartooyga waxaanu dareemi karnaa maamul goboleedyada kale oo ciyaartooyga Soomaaliya Soomaaliya galeen inta badan sida darteed looma ogola in ay maamul goboleedyada ka soo muuqdaan laakiin inaga ka Puntland ahaan ciyaartooygeenu alif damwaan haysanaa sida muuqata ciyaartooy waaweyn baa inaga inoo dheelaya meesha ciyaartooy yar yar u dheelayaan maamul goboleedyada kale taasina waxay ahayd fursad ay tahay in laga faa'iideysto waxaan qabaa hadii la diyaarin lahaa sportska Puntland oo qaab sax ah loo diyaarin lahaa oo laga fogaan lahaa eexda qof jeclaysiga goboleysiga faquuqa hadaan ka fogaan lahayn waxaynu tahli lahayn oo aynu gaari lahayn guulo wax ku oola waxana muuqan lahayd
weynida aan ka weynahay maamul goboleedyada kale oo waqti horeeto inuu kubadda cagta joognay waxa muuqan lahayd nabadda Puntland ka jirta oo meel nabad ku jirto ayaa lagu ciyaaraa kubadda cagta waxa muuqan lahayd isboortigeena tayadiisa waxa muuqan lahayd macallimiinta waxa muuqan lahaa maamulka tayadiisa laakiin intaas oo dhan kama aynu faa'iideysan oo aynu hareer marnay markii aanu imaado khaladaadka ka dhacay ciyaaraha macallimiintu ama ciyaartooyga gudaha garoonka ka sameeyeen markii aanu imaado ka macallin ahaan wixii aan ila muuqatay ciyaartii aanu la ciyaarnay Jubbaland shaxda horeeto oo tartanka lagu soo galay ciyaarta lagu soo galay iyo culeysyo badan oo jiray maadaama ciyaarteeni koowaad ahayd culeysyo iska jiray garoonka la qabsiga u baahnaa kooxda in la ciyaarayna koox guul raadinaysa bay ahayd koox ku suntan bay kubadda cagta Soomaaliya oo awoodeeda aan la qiyaasi karin arrimahaas oo dhan oo isbiirsaday shaxda hore wax dhaliil ah kama muuqan walow aniga fikir ahaan ka macallin ahaan ay igula qurux badnayd in la weeraro maadaama iyagu soo weerar tagi lahaayeen oo iba cadayd inay weerar noqonayaan in la weeraro ay ku qurux badnayd laakiin may dhicin si wanaagsan baa heefkii hore loo dheelay laakiin waxa muuqatay inaan ciyaarta la akhrin waxa muuqatay inaan ciyaarta macallimiintii shaqada haysay inay aad ugu fiirsan inaanay soo kabin daldalooladii jiray inaanay u fiirsan inaynu ka badin karnay aniga waxaan qabaa 100% waynu ka badin karnay Jubbaland haddii bedelada ay sameeyeen inta aynu u fiirsano oo aragno daldaloolkooda aynu ka faa'iideysano aynu meelaha ay ka guureen degno ashwa inaan goolalka imaan lahaayeen markaan isku soo wada duubo macallinku go'aan buu lahaa inuu bareejo galo wuuna galay waa ku ixtiraamaya go'aankiisa bareejaduna way u fiicnayd taasaan uga gudbaya ciyaartii xigtay oo aynu la ciyaarnay Koonfur Galbeed runtii ciyaartaas shaxda waxba laga soo bedelay wuxuuna soo sameeyay laba istoobar buu macallinku soo sameeyay ama laba kubad joojiye waxay ku qurux badnayd labada kubad joojiye markii uu sameeyay inuu playmaker sameeyo oo kubad sameeye ciyaartu yeelato si uu u gaarsiiyo ciyaartooyada garbaha ka ciyaarayay iyo lambar 9 oo nin khabiir ah oo xaqiiqatan aan barbarihii maalintii dhaweyd gashay maamul goboleedku aan Yacquub runtii aad uga mahad celinayo sida uu weerarka isugu xiray sida uu daafacyada isugu xiray sida uu maaragtay kooxda uu macallin garoonka ku jira oo aad baan uga mahad celinaya ay ka muuqatay way aragnimada iyo khibradu hase yeeshee waxay ahayd in la sameeyo lambar 10 waxa kale oo muuqata ciyaartooyga khadka dhexe ninka la yiraahdo Jufa oo ciyaartooyadii aan markii hore u sheegnay laga keenay Gibley ahna ciyaartooy runtii aad wax uga qabtay khadka dhexe ciyaartooygan aniga hore ma aanan aqoonayn koobka gobolada Soomaaliland baan daawaday haddana waan daawadaa ciyaartooygan waxaan oran karaa waa ciyaartooy box to box ciyaartooyga la dhaho way oo loogu talagalay inay labada dhinacba kubadda ka ciyaaraan way waqtiga ay kooxdu weerarka taayna boxka shigaaraan waqtiga ay daafac taayna boxka kooxda ay joogaaneen marka ciyaartooygaasi wuxuu aad ugu qurux badnaan lahaa in stopper loo sameeyo isaga iyo ciyaartooy kale khad dhaxa oo box to box ana labada dhinac laga ciyaarsiiyo laba garab la sameeyo hadii lambar 10ka laga maarmay iyadana lama sameyn walow ciyaartii dhaweyd ee dambe ee la ciyaaray Koonfur Galbeed wuxuu masaaxo haystay oo ku dhaqaaqo wax badan buu sameeyay 3 fursadood uu sameeyay 4 shoot uu sameeyay kastoon on target ahayn 4 shoot buu sameeyay 3 fursadoodna uu sameeyay marka wuxuu ku tusinaysaa taasi masaaxo ka badan hadii uu helo waxa uu maalintii dhaweyd sameeyay wax ka badan ayuu sameyn karaa taas waaye waxa kale oo iyaduna arin aan runtii anigu aad ugu dhaliilay macallimiinta ahayd oo aad moodo xoogaa inay ciyaarta dhex joogin macallimiintu xayraan runtii wuxuu ahaa kay playerka kooxdu ahaa ama furaha ciyaarta maamul goboleedka Puntland buu ahaa kaar buu qaatay laba mas'alo markaa aniga way isku qaban weyday kooxda Puntland halfka hadii laga soo noqday waxay go'aansatay inay bareejo ku dhameysto ciyaarta gool bay heshay waa la barbareeyay raalli bay ku ahayd inay barbara gasho raalli bay ku ahayd okay raalli baan ku ahay inaan barbara galo ciyaartooygii kay playerka ahaa oo weerar oo garabka ciyaaray kaar buu qabaa oo ciyaarta hore soo qaatay haduu kaariga qaado waa mid next match
weerar waxba ugama baahnayo waa go'aansaday inaan bareejo galo sabab u sii ciyaaro xaqiiqatan ma aanan arkayn waxay ahayd in ciyaartooyga kaleeto Janis la siiyo oo ciyaartooyda garbaha ah Janis la siiyo way ahayd markii goosh laga keenay ama xataa markii ay goosh lahaayeenba taasi ahayd mid kaleeto waxa weeye inta aynu goosh lahayn laba qodob way noo banaanayeen inaan faramsiyoonka bedelo uu banaanaa maadaama aan daldalool lagu dhawaanayay inaan faramsiyoonka bedelo kooxda way ahayd oo at least macallinku dhexda wax ku soo kordhiyo maadaama uu hal istoobar dheelayay uu ninka la dhaho Jufa dhaqdhaqaaqiisa xarakaadka garoonka dhinaca doona u soconayay meel ku toos buu ahaa horay buuna inta badan xooga saarayay laakiin diida ayaa wax hortaagnaa daafacyada hortaagnaa hal istoobar maadaama uu dheelayay waxa la rabay inuu soo kordhiyo istoobar labaad soo siiyo masaaxadiisana u daayo ninka la yiraahdo Jufa inuu masaaxadiisa u daayay ahayd cilada ugu weyn oo kale too jirto waxay ahayd diida wuxuu ahaa difaac shanaad buu ahaa oo kama soo dhaqaaqinba markii ugu wanaagsanaa 7 mitir ama 6 mitir buu ka soo durkayay tishata afkiisa wana meeshii loogu talagalay in ay difaacyada daafaca ka galaaneen marka runtii aad buu difaac shanaad buu u ekaa oo stopper hore u soo dhaqaaqaya ma uu ahayn marka waxaan qabaa in haddii aynu gool helay la ilaalin karay goosha at least inaan hal iyo eber ciyaarta ugu badino waa la sameyn karay haddii ciyaarta la akhriyo oo la iqtiraaco laguna soo kordhiyo meelaha ay daldaloolka ka inuu ka arkayne taasi ahayd midda labaad oo jirta saddexaad oo jirta waxay ahayd waxa dheelay ciyaarta laba noobe 4-4-2 ma ahayn ciyaartu garab ma u ahayn injineerku dabcan ciyaartoy dhex ah ayuu u muuqday kama qaban karo shaqo weyn dhexda kama qaban karo burburin fiican male kubad sameyn fiican male at least hadii ay ahayd in marka waxay ahayd ugu yaraan in nooba boxka uu galay Yacquub dabadiisa la istaajiyo maadaama inuu ku ognahay kubada xoogan injineerka maadaama lagu ogyahay laadkiisu toosan yahay farsamo uu leeyahay waxay ahayd in weeraryahanka gadaashiisa uu ka ciyaaro kama u ciyaareen marka waxa muuqata xoogaa in macalinka iyo ciyaartooyga meesha u jooga iyo qofka uu yahay ciyaartooygu iyo shaqada uu qaban karo in maaragtay aanay wax badan oo aqoon inaanay jirin ciyaartooyga iyo macallimiinta dhexdooda baa muuqata waqti badan bay diyaarinayeen macallimiintu ciyaartooyga waqti badan bay hadda hayeen laakiin waxa muuqata dad u baahnaa in fursad la siiyo inaan fursadii la siinayn oo aan laga faa'iideysanayn tayadooda ciyaareed marka isku soo wada duub kulay galabta waxaan leenahay ciyaarta saddexaad maadaama ciyaartii hore aynu Janis lahayn fiiri ciyaartii Jubbaland markaynu ciyaarnay Janis bilan xataa hadii leena ka badiyo Janis baan lahayn ciyaartii dambe oo koonfur galbeed xataa hadii leena ka badiyo Janis baynu lahayn laakiin galabta xataa barbaro Janis kuma lihin marka waxaynu u baahannahay in ciyaartii Jubbaland wax laga barto laba ciyaarood bay dhashay anagoo boos joogna oo waxa ay tahay nimanka la yiraahdo Galmudug waxay aad uga xoogan yihiin khadka dhexe iyo weerarka laakiin difaacooda iyo goalkeeper-ku waa biyadaadis kooxdeena Puntland uma muuqato koox rabta inay degto meesha kooxdaas ka jilicsan tahay kooxda Galmudug waxay ka jilicsan tahay daafaca iyo goalkeeper-kooduba wuu jilicsan yahay xaqiiqda markaan ka hadalno marka waxaanu ognahay in ay kooxda Galmudug tahay koox aad uga xoogan xaqiiqatan weerarka iyo dhexda laakiin waa biyadaadis difaaca iyo goalkeeper-ku waxaana tusaale inoo ku filan inay dhaliyaan 4 gool oo ay tahay kooxda ugu wanaagsan gool dhalinta sidoo kale waxa tusaale inoo ah inay tahay kooxda ugu liidata dhanka daafaca oo 3 gool ayaa shabaqeeda taabtay hal ay ka dhalisay laba ay ka dhalisay Banaadir iyo hal ay ka dhalisay Hirshabeelle marka waxaanu muuqan karta oo in ciyaarta ka baran karnaa inay tahay koox xaqiiqatan difaaceedu jilicsan marka waxaan ku talin lahaa ka macallin ahaan in maanta dhexda iyo daafacaba xoog la saaro kooxdana balance loo ciyaarsiyo 4-3-3 waxba kuma jabna in ciyaartu playmaker yeelato maadaama uu yahay gool hayahooda gool haye runtii kubadda dibadda laga soo laaday laga dhalinayay
waxay noo jooga ciyaartooy xoogan oo aan ku sheegay aan ka magac rabi karno ninka la yiraahdo injineerka kale haduu lambar 10 ka dheelo uu ka dheeli karaa kubado badan uu gaarsiin karaa Keenan baa jooga Cabdiraxmaan Labaala jooga Baaxo Jirda jooga ciyaartooy badan baa jooga oo lambar 10 ka ciyaari kara kubadooduna xoogan tahay oo target badan sameyn kara Puntland ciyaarihii la soo dhaafay targetkoodu aad buu yaraa taariikul kiibarka kubada ay bartilmaameedsadeen aad buu yaraa markii aynu ka reebno laba kubadood oo gool ah oo xayraan khasaariyay markii aan ka reebno kubadaha targetka ah waxaan oran karnaa Jufa uun baa kubada target ah sameeyay waliba on target aan ahayn target iska oo goosha bartilmaameedsaday marka wixii aynu ka baranay ciyaarihii aynu soo dheelay Puntland iyo nimanka la dhaho Galmudug wixii aynu ka baranay in ciyaarta lagu dabaqo ay u baahan tahay oo ay macallimiinta Puntland runtii deegaaneen meelaha ay ka liitaaneen kooxda Galmudug waxa kale oo cajiib ah macallinka wata kooxda Galmudug xaqiiqatan waa macallin garanaya meesha guushu ka xigto waxaanu ka soo aragnay sida uu u maamulay ciyaartii Hirshabelle wuxuu u baahnaa gool wuxuu sameeyay goolkii wuxuu arkay waqtigu inuu ku filan yahay inuu gool labaad la iman karo isla goolkii labaad buu doonay ciyaartooyada goolasha u dhaliyay mid kamid ah dibaddu ka keenay ciyaartooyga goolka sameeyay oo goosha labaad sameeyay dibaddu ka keenay marka waxaanu dareemi karnaa inuu yahay macallin la socda ciyaarta dhex taagan og ciyaartooygiisa meesha u fadhiyana la socda dhaqdhaqaaqooda iyo waxa ay ku soo kordhin karaan garoonka ama daafac ama dhex ama weerar cid wax ku soo kordhin kara aad ayuu ula socdaa marka waxaan rajaynaynaa ciyaartooygeena iyo macallimiinteena maanta oo kale dabcan ma aha maalintii la isdhaliili lahaa laakiin dhaliishu dabcan waa wixii aad sameyseen baanu sheegnay ma jirto inaanu macallimiinta saluugsanahay wixii ay qabteen waxaan rabnaa inay wixii wax ka badan qabtaaneen shaqo wanaagsan bay qabteen waxaan u baahanahay inay horumariyaan waaxda weerarka kooxda in la horumariyo ayaan u baahanahay sababtoo ah waxaan leenahay 5 game ayaan 2 gool dhalin hadeena Puntland markii aynu ka hadalno 2016 inamana qabato xaqiiqatan Puntland waa koox weyn waa koox u baahan inay waxaan wax ka badan ay sameyso marka waxaan insha Allah rajaynaynaa inaan waaxda weerarka runtii aan aad horumarino walow ay jirto xogaa yara dhaliil oo ciyaartooyga weerarka ka ciyaaraya waxaanu ognahay kooxda labadii maajo ay soo dheeshay fi nafsi shay hal tashkiilad bay dheeshay ciyaartii dambe wuxuu bedelay Bashka wuxuu keenay Yacqoob laakiin labadii garab sidoodii ayay u dheelayeen maanta mid bayna ka maqan walow aynaynu anaguna ogeyn macallimiintuna ogeyn oo nala mid yihiin tayada ciyaartooyga fadhiya waayo ciyaartooyga traininka iyo matchku waa kala labo ciyaartooy traininka aan aad ugu wanaagsaneyn ba matchka aad ugu wanaagsanaan kara ciyaartooy matchka ku wanaagsan ba traininka ku xumaan kara marka على الأقل waxay ahayd ciyaartii dhaweyd ee koonfur galbeed la dheelay haafkadeenu ka soo noqonay 8-maadkii ama 7-aadkii in ciyaartooygaasi garbaha ah oo jooga sida la sheegay anigu ma hubo laakiin galdogob ciyaartooy laga keenay baa jira waligu lahaa oo runtii garab weerar ka ciyaarayo aad u wanaagsan waxa jira ninka la yiraahdo Baaxo Jirda oo isaguna aad ugu wanaagsan garabka oo aynu aragnay wuxuu koobka Soomaaliland ka soo qabtay waxa jira ninka la yiraahdo Cabdiraxmaan oo isaguna runtii aynu ognahay tayadiisa garabka iyo diyaashaha labadaba waxa jira Keenan oo professional ah oo garabka midigta iyo bidixda labadaba ka ciyaari kara oo aynu ognahay isagana tayadiisa iyo xawaarihiisa iyo awoodiisa iyo crosseska aynu ognahay waxyaabaha uu ka qabtay xataa ciyaartii MCC ee qardo kula ciyaartay shaqada uu qabtay aynu guud ahaan ognahay ciyaartooygaas oo dhan waxay xaq u lahaayeen in ugu yaraan la tijaabiyo waayo dhaawacyo iman kara waxa iman kara kaarar baa iman kara waxa iman kara ciyaartooygu inuu daalo ay ka jifto waxa iman kara in gool aynu ka hormaro aynu awood u baahno inuu weerarka ku siyaadino waxaas oo dhan waxay ahayd inaynu ugu yaraan wuxuun aynu tijaabino ma dhicin oo leno waa isku soo wada duub waxaanu u baahanahay galabta inaynu si wada jir ah u wajahno Galmudug anaga dabcan taageerayaal ayaanu ku koobanahay waxaanu rajaynaynaa inaanu garabkeena taagnaan doono wixii dhaliil ah oo aanu sheegnay waa wixii aan idinka aragnay haddii aad wax wanaagsan qaban lahaydeen ciyaar fiican soo bandhigi lahaydeen waan idinku amaani lahayn haddana inta yar oo aad ku joogtaan meeshan waa idinku amaanaynaa wax wanaagsan baad qabateen
walow aanu dee macalinku soo xulin waxa kan macalinka xulitaankiisa dabcan kuma iman macalinku haddii tiis ahaan lahayd wuxuu keeni lahaa dad uu yaqaano ku kalsoon yahay uu ku bedeli karo ciyaartooyga ka xumaada uu ku soo kordhin karo meeshii uu week ka dareemo laakiin waynu iska ognahay Puntland shakhsiyaad baa xula shakhsiyaadkii waxay xuleen buu macalinku ku shaqeynayaa ilaahay ha u fududeeyo shaqadiisa isaga iyo macalinku xigeenkiisa macalin Jibriil Cismaan Wardheer iyo macalin Ibrahim labaduba waa laba nin macallimiin oo saaxiibadaya wixii aad khaladeen baanu sheegnay nacayb ma jiro xumaani ma jirto kale waanu ognahay inaad ku shaqeynaysaan in xaalad adag waanu ognahay in maamulka Puntland ee xiriirka kubadda cagta Puntland wasaaradda anaga wax badan oo dhaliil uma aragno waayo dhaqdhaqaaq badan iyo saameyn kuma laha laakiin xiriirka kubadda cagta Puntland waanu ognahay inuu faraha kula jiro waanu ognahay inuu shaxda idinku aaminin waanu ognahay inuu xulitaanka idinku aaminin waxaan rajaynaynaa inay shaqadooda aqoonsadaan meesha ay baruurta ka qulunto waa iyaga inay tartamo qabtaan maanta laguma wareerin cid meesha maraysa iyaga inay horyaal qabtaan koobab goboleed qabtaan koobab degmooyin qabtaan midna mayna qaban 2016 baa ugu dambeysay tartan ay qabtaaneen dadkii 2016 ciyaarayna maanta waa odayaal way iska ognaay dad badan oo hibale baa jira oo joogay oo Puntland joogay laakiin anigu garamaayo idinkuna garameysaan macalinkuna garan maayo dhaliishana iyaga ale waxaan ku fakarnay koobka degmooyinka gobolka Banaadir iyo koobka gobolada Somaliland baan ku fakarnay cid noo ciyaarta anigu ma qabo inaynu dabcan helalaan sababtoo ah ciyaartooyga Puntland firir baa ku dhacay koobka degmooyinka 8 mise 9 ciyaartooy oo reer Puntland baa ka dheelay koobka gobolada Somaliland 12 mise 15 ciyaartooy oo reer Puntland baa ka ciyaaray marka taas waxaynu arki karnaa in badan oo shaqooyin xanibeen in badan oo duruufo kala xanibeen laakiin kubad darteed uga tagi lahaa dalka baa jira oo iska jooga marka waxa weeyaan run ahaantii waa koobkaasna waxa weeye dhadhama jirta oo loo raacayo koobka ka socda xamar dhadhama jirta xiriirku u raacayaan hadii uu ahaan lahaa koob iska yaabis isa soo fangaray la oran lahaa ayaga naftarkoodu ma aadeen baan qabaa marka waxaan leenahay madaxda Puntland xiriirka kubadda cagta Puntland hadda jooga war waxba meesha kuma hayaanin waa dhadhama raac meesha wax loogu sheego bay tagayaan madaxweyne iyo wasiir sporti iyo agaasime iyo xiriirka kubadda cagta Soomaaliya iyo cid walba arintan ku shaqale war kooxaha Puntland waxa doortaan nimankan ilaa 2016 baan u sabureynaa haddii maalin dhaweeyo iyaga Facebook soo dhigo xidheen waqti waan ku darsanay gurigoodiiba waqti waan ku darsanay maxay tahay dad way waxay maamulayaan waa jiil dhalinyaro ah waa dadkii u bixi wadanka waa dadkii wadanka kan wax u qaban lahaa hadii maamulka yagi iyo masiirka yagi uu ku darsan karo Maxamed Ciiro maalintuu doono Mustafa Majaxsan isagoo ugu dari doono Julayna isagoo ugu dari karo marka anaga maxaa qabanayna balance weydiino in dadku iska kala tagaaneen cid walba waxay qabsan karto qabsataa cid walba shaqada ay u leexan karto u leexata la haystayaal baa nahay xir ma nihin xaqiiq baan ku sheegaynaa xiriirka kubadda cagta Puntland xorriyadii buu ka qaaday dhalinyarada Puntland waana ku sheegaya sababta u sahlaysa hadan ku cadeynaya sababta u sahlaysa inay sidaas wax u maamulaaneen kubadda cagta Puntland waxay noqotay madax ka nool waxay ka nooshahay gobol gaara markii ay xulid noqoto ama ay maamul noqoto goboladii ay ka nooleed baa wax looga yeerayaa iyaguna waa ku qanacsan yihiin waxaana ku cadeyn kartaa xulka Puntland dib ugu noqo gobolada uu ka yimi cid kala qaybsatay 3 nin baa qaybsaday ama 4 nin oo goboladoodii baa meesha jooga inta kaleeto waa dad dibadda laga keenay oo la yiri balyaan lagu qaylin gardafu qof baa laga keenay karkaar 2 qof baa laga keenay bari 2 qof baa laga keenay hadda waa gobolka bari oo taqaanaan 2 qof baa laga keenay Highland lagama keenin buuhoodle qof baa laga keenay meesha la yiraahdo Sanaag qof baa laga keenay marka maxaa maamulkana inta qof kagama jiro gobolada aan ku soo sheegay qof reer bari ma socdo oo gobolka bari ka tagay oo maamul ah ma socdo qof reer karkaar oo maamulka ka tagay ma socdo qof reer Highland ma socdo mid reer Sanaag ma socdo mid reer Gardafu ma socdo laakiin gudoomiyaha sportiga gobolka Nugaal baa maraya maxay ugu bedelaa Puntland miyaa baxday
ma nugaal baa baxday gudoomiyihii isboortiga gobolka nugaal taybu wataa warqad loo sameeyay buu wataa VIP du fadhiya hay aan isweydiin sabab wuxuu ku baxay bal noo soo sheega haddiise uu bixi karo muu kan bari baxo muu kan gardafo baxo muu kan sool baxo muu kan ay ma baxan way marka waxa weeyaan xiriirka kubadda cagta Puntland cid aynu isla naqaan ama ku faraxsano ama ka naxo buu gacanta u galay waxaanu rajaynaynaa marka inaanu helo cid samata bixisa waxaanu baaq u direynaa xiriirka kubadda cagta Soomaaliya waxaanu baaq u direynaa wasaaradda isboortiga Puntland waxaanu baaq u direynaa madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni oo nin isboortisa oo yaqaan kubadda cagta waxa ay tahay oo waagi uu kursiga yimi noo sheegay inuu taageero football yahay oo Napoli taageero oo ilaahu aan beerka beelanay oo nin ciyaaraha wax ka fahamsan yahay warniyo xabsi baa ku jirnaa in adeer uu gacaliyo cid walba oo xaaladan ku taxalluqda xiriirka kubadda cagta Puntland isaga waqtiga ku darsaday anagu ugu madarin cidi aamusaysa waa aamus kartaa laakiin anagu hadleena waana mahadsantiin